دافئة سلام كذي أنا وقعت على من عروق كذا أنا يرتب ماذا جلسي أنا بدون أنا يرتب ماذا جلسي وحمات صوب وحمي استار بود يرتب ماذا جلسي استار بود هان وحكي لي حالة كوليرا ما أرمي الصور عطي عايز بعد عذر كوليرا حالة أصلية ممكن نسوي دينه marka waxaan u baaqaynaa dhamaan hay'adaha international ka kuwa localka ah kuwa dawladda ah dowladda Shabeelle inay la soo gaaraan daawo maadaama xanuunka uu sii badanayo lana garaayo xilligii kuleelaha bishii Maarso ee dhiman tahay oo ugu darneed welina oo xanuunkii socdo waxaan u baaqaynaa ururka dhalinyarada ahaan inay la soo gaaraan daawo iyo maaragtay iyo agabidii kale oo dhammaarmaan ka ah annagana ka dhalinyaro ahaan waxaan diyaar u nahay habeen maalin inaan shaqeyno si volunteer ugu shaqeyno dadkeena si loo gudbo xanuunkan koleeraha kolera waa cudur ku gudbo cunnada iyo biyaha waa cudurka ugu socodka badan haddii qofku uu helin xilin ama daawo sax ah uu helin saacado kooban ayuu ku iman karaa marka waxaan u baaqaynaa dhammaan hay'adaha internationalka iyo localka inay maaragtay barnaamijkaas ay naga caawiyaan waxaan la taagan agaasimaha isbitaalka guud ee degmada Jalaasi Mr. Yusuf Bilow asiga faahfaahin doono xaaladdu say tahay madaxweyne ku-xigeenka gobolka Hiiraan ma magacaabin ama adaa magacaabay agaasimo magacaabay أنا بس كان تمام مستعد وحير أذكر كرفان لا دراسة مجال عاكجرو شو بيوت كاسو بعد السنة بيقول جلّس ما نسوا بلا والله ودي في شيء مرات إلا يحطوا بس على عيان مع لا شو بيوت ما عليك تروح بس ضاعي ما عليك تروح بس ضاعي marka magaalada waxa ka jiro dawlaan ka jirto saas daraadeed waxaan sanayna kasta naxayso amba jacayl wax ka wada inay la soo gaarto wixii agab daawo ay hayso amba wixii kala deebiyo amba ay taasi jalaq marka intaan jalaq hado maalin kasta waxa soo galo waxa uu sii baxaan waxyaabo kunteen ayadana marka waxa si yaqaanay waxa hadda noogu daran xogsanayna waa dawlaan inkastoo ay jirto qolooyin daawooyin keenay haddana weli xukuumad ma dhamaystirin baahida isbitaalka agaasimaha kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Jalaasi runtii dhalinyaro ahaan waxay la taagan guddoomiye isboortiga ee degmada Jalaasi annaga kulli wax ku ognaa wacyigelin iyo dadkiina u sheegnay sida u faafo koleeraha maaragtay waa cudur ku badan waa cudurrada ku gudbo cunnada iyo biyaha si aadna maaragtay xawaarihiisa u sareeyo waxaan samayn doonaa tiimam wacyigelin ah baabuurro wato xaafadaha ku wacyigelin sidii koleeraha looga hortegi lahaa iyo sida maaragtay dadku maaragtay cudurkaas intoona ku dhicin qofka ugu hortegi lahaa sababtoo waxaa la yidhahdaa hortegid waxay ka wanaagsan daaweynta haatana waxaa siinayaa kelimo gudoomiyaha isboortiga degmada Jalaasi Maxamed Xuseen ومسنتين قدوميها دليرة مدحها أقاسمها إسبتال كتجمع جلس بلا ومسيين كل ما أنتوا حان تقولوا بوغني كل أقاسمها فوجو إسبتال كأني قدوميها دليرة ما أنتوا عصاب بوغني أنا جوا قدوميها سبورت كتجمع جلس يا إن أن تذكر قلنا حالة إسبتال كتجمع جلس تاني وجود بحاجة ريشون بيوت كاسوس سبورة إن تضمن أيكون بوايا هل كتب بدن إلهي وكبوكسي مركي لا تعالى عافمات كإله تعالى هريا بين دليرة كتجمع جلس وتاجين أيوة سمو تدعو عنه وشقينا إن أيكون شيء أديان marka walaalaha reer Jalaasi meel ku ajooga waxaan codsanaynaa in ay isbitaalkoodii ay wax u qabtaan hadda isbitaalka qolooyin badan daawo keenay daawooyinkaas wax weyn bay u tareen marka inta hadda dhiman waxaan leenahay cid walba oo isbitaalka wax taraysa fadlan leenahay soo gacan furna ku soo dhaweynayna cid alla isbitaalka wax qabanayna gacan furna ku soo dhaweynayna marka waxaan leenahay anigoo agaasimihi iyo gudoomiyaha dhalinyarada degmada Jalaasi ay garab taagan yihiin cid walba oo isbitaalkaani heegan u ah in ay wax u qabato gacan furna lagu soo dhaweeyo wabillahi tawfiiq